sheekh mustafa daawud nuur oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Gabiley sheekhan oo ah khadiibka masjidu tawxiid ee magaalada Gabiley ayaa maanta khudbadiisii jimcaha ku soo qaatay bandhig faneedka qabyaaladiidka ah ee ay hogaaminayaan qaar kamid ah fanaaniinta dalku isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa laakiin heesaha hadalka nabi maxamed ayay ku go'daa iyo hadalka rasuulka qofna awood uma laha lamana hadalidu ka tallaabo oo isagu hadalkana u samaysto oo ilaahay diina uga dhigto waxyaabaha dhulkeena rogay ee hore u rogay waxaa ka mid ahaa hawladii waa beri iyo kooxdana la odhan jiray iyo kuwii magacyada badnaaya hore ilaahay waa kii nagu ciqaabay ee qaxiyo dhibaatiyo eedaad galay macaasidiina rogtay baanay ka mid ahaayeen dumar baanay sifeynayeen iyo fujuur iyo fisqi waxaasina in maanta ummadda lagu soo celiyo oo la yidhaahdo bandhig faneed baan samaynaynaa waa fanta faneed wey ummadda fanta usoo bandhigaya ee bandhig wanaagsan oo khayr lagu sheegayo oo soo bandhigaya haddii qabyaalada la diidayo ama macaasida la diidayana dariiqooyin kaloo loo maraya kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka loo maraya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka ayaa loogaga digayaa dadka ilaahay baana golay waxaana tinimeeyey laakiin heesaan u maraya heesaana dadka ugaga digaya waxaana fi aaxiratooda ku badbaadayna maaha nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi macaasida waxa weeye dhacaysa wax qofka xaadira ee inkiraan wuxuu noqonaya qofka maqan ee raalli ka noqda ama magamageeyaana wuxuu noqonayaa qof xaadira oo meesha joogay marka wayna qalbiga ka dhacnaa oo aan afka kaga dignaa oo aan dhammaanteen iskaashanaa ummaddeennana dariiqyada ay ku halaagsamayso ama ay ku baabayso marna iska ilaala andalus ummadda muslimiintu markay ka soo baxayeen ay dhici doonto waxa dhacay niman heesa oo malaahi leyliya ama bandhig faneedyada sameeya ayaa ummadda waxa weeyaan rogay oo dilay kadibna markay akhlaaqdoodii baabiiyeen ayaa ummadda muslimiinta isbiil laga soo saaray ummadina marbannaysata heesaha ilaa akhlaaqiyan bay u duntaa oo waxa weeye xumaanta ku badata carruurta bilaabaha ku bata saqaraha ku badata isdhexgalka iyo qudhunkaa bata baabaa iyo rulbashada badata dadka isdilaya imtixaanaya bata waxaasoo dhana qaladka yimid wey zinadana waaba ruqyada keliya ama waa dariiqa keliya ee zinada lagu gaadho waliajli daalika bay culimada qaar yidhaahdeen qof heesaa ma jiro ilaa waa faasiq faajira oo xumaantu agtiisa ka fududahay waa cabdisalaan maxmed bade bulsha TV Gabiley.